waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan idin salaamay dhammaan muslimiinta meel kastoo ay caalamka ka joogaan. Waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan, habeen wanaagsan oo yacni waqti walba ay idin tahay ku noolaada farxad. Sideed ku noqon kartaa qof la jecel yahay? Haddaba su-aasha la isweydiinayo, qof kastoo annaka naga mid ah wuxuu jecel yahay ama uu ku fekeraa siduu u noqon lahay ruux la danaynayo ama la jecel. Sidoo kale kama maarano inaan helno dad na jecel na danaynayo agtooda aan qiimo ka leenahay. Haddaba su-aasha la isweydiinayo ayaa waxay tahay, waa maxay sababta dadka qaar looga cararo iyo sababta dadka qaarkood ay yihiin dad la jecel yahay ama dadka kale agtooda qiimo kale? Farqiga u dhaxeeyo ayaa meesha ku jiro. Farqiga u dhaxeeyo waxay ku xiran tahay dhaqanka qofkaas sida uu dhaqmayo, yacni qaabka uu la macaamulayo dadka bulshada uu la nool yahay. Hadday tahay xaafadda, qof walbana ogaaw shakhsi walboo jiro sida uu xaafadda ku yahay unbuu bannaankana ku yahay. oo sababta waa maxay? yacni la dhaqanka xaafadda hadduu toosan yahay oo qofkan si qurux badan dadka xaafadda jooga ula dhaqmo, wanaagga xaafadda uu ku hayay bannaankane wuu la imaan karaa. sababta waa maxay? yacni dhaqanka bannaanka uu ku samaynayo iyo kan xaafadda uu ku samaynayo waxaa badan kan xaafadda. haddii marka kan xaafadda oo uu mar walba ku celcelinayo kala tusaale uu bato, wuu qurxoonaanayaa la dhaqanka dadka bannaanka la joogo, qaabka ula dhaqma. qofka markuu rabo inuu noqdo qof la jecel yahay, waxa ugu horeeya waa inuu ahaado qof daacada oo iimaan leh. waa maxay? qof iimaan leh. Okay, haddii aad iimaan leedahay, dadka aad iyo aad boqolkiiba boqol way jecel yihiin qofka iimaan kale oo Allah ku xiran. haddaad Allah agtiisa qiimo ka leedahay oo Allah aad ku xiran tahay, dadkana way ku jeclaanayaan. ta labaad, noqo qof daacad. daacadda waa waxa ugu horeeyo oo yacni qofka lagu qiimeeyo. qofku hadduu yahay qof khiyaanada ka fog, dadka mar walba way isoo dhawaanayaan si ay ula noqdaan saaxiib, ama se yacni ay ugu yaraan ka qaataan dhaqanka qofkaas qaabka uu dhaqmaayo haddii aysan wax kale ka qaadan karin. qodobka saddexaad waa iska dhowr gafafka. iska dhowr gafafka marka lagu leeyahay waa inaad ka fogaataa, maadaama aad. qodobka afaraad, noqo qof ilaahay dartiis u jecel dadka oo dhan. haddii aad tahay qof ay dadku u wada siman yihiin ama samaynaya cadaalad ama se yacni sinaan, markaas waa qodob ka mid a qodobada ay dadku kugu jeclaanayaan. sababtoo yacni haddii aadan dadka kala saarin, waxaa ku fududaanayso inuu qof kasto yacni uu kula wadaago wixii gudihiisa ku jiray. laakiin haddii aad tahay qof isla weyn ama xoogay dadka kala sarraysiiya, aad iyo aad ayay khalad u tahay. iska ilaali. qodobka ugu dambeeya oo shanaad waxaa loo yaqaanaa u gargaar dadka. ma aha micnaheeda haddii lagu dhaho qof u gargaar in aad bixinayso yacni lacag oo kale, laakiin waa maxay? qof miskiina oo waddo goynayo yacni ama indhoole oo kale, haddii aad waddadaas goysiiso waa wax gargaar aad samayso, waa qayb ka mid ah yacni dadka oo aad u gargaartay. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waad mahadsantihiin. fadlan haddaad kanaalka ku cusub tahay, subscribe saar, lana wadaag asxaabtaada. waad mahadsantihiin. bye bye.